maalin Jimco ah 7 Oktoobar 2022 ciidamada dawladda ayaa ku dilay 19 dhagar qabe oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab tuulada Maryooley oo u dhaxayso degmada Balcad iyo deegaanka Basra maleeshiyadkaas ayaa isku aruursanayay meeshaas si ay uga soo qaadaan weeraro ciidamada dawladda oo helay xogta argagixisada ayaa weerarkaasi ku qaaday sidoo kale ciidamada ayaa loo diyaariyay in ay ku beegsadaan ama ay ku baadi goobaan baadiyaha argagixisada waana ciidamo si gaar ah loo tababaray oo loogu talagalay inay ka ugaarsadaan baadiyaha dhanka ciidamada dawladda waxaa ku dhaawacmay 2 askari oo dhaawacooda uu fudud yahay ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa si joogto ah uga sameeyay howlgallo inta u dhaxayso degmooyinka Balcad ilaa Afgooye ilaa markii ciidamadu ay la wareegeen deegaanadaasi sida ogsoontidiin ba argagixisadu waxay in badan ay dhibaato ku hayeen shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada waxaan ogtidiin in go'aamo ay dawladdu ka soo baxday argagixisadan hadda jabeen in aan la tacaamuli karin marka dhibaato kasta oo shacabka lagu haayo oo ah inay maaragtay ay isku dayaan inay dadka ay tahdiidiyaan ama ay ugu goodiyaan inay ama dilayaan ama ay tilaabo ka qaadayaan waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ha soo sheegaan ha u soo gudbiyaan ciidamada dawladda diyaar ay waxay u yihiin inay ka jawaabaan oo ay maaragtay ay ka difaacaan dhibaatada ay ku hayaan marna ma aqbali doonto dawladda Soomaaliya in shabaab loo dhagan nugulaado ama la aqbalo warka ama awaamirta ay sheegayaan oo maasintiina